toydii hore xulka qaranka ee Soomaaliya kubadda cagta iyo kubadda kolayga ee waqooyiga Ameerika ayaa waxay booqasho ugu tageen ciyaaryahankii hore xulka qaranka ee Soomaaliya naadigii Muqdisho Axmed Cabaas Busuri oo ku xanuunsan magaalada Farmington ee gobolka Minnesota lagu macsuumay xafladda uu soo qabanqaabiyay aadan ugaas Jaybuli oo loogu magac daray habeenkii horumarinta iyo haldowrka Soomaaliyeed ciyaartoyda soo booqatay Axmed Cabaas ayaa waxaa ka mid ah ciyaaryahankii kubadda cagta iyo xulka qaranka Batroolka Mukhtaar Cuti oo ka yimi magaalada Toronto ee dalka Canada Khalif Riiko oo ka yimi Washington Aweys Fundi oo ka yimi magaalada Atlanta ee gobolka Georgia iyo Matan oo asna ka yimi oo majaajilistaha weyn oo ka yimi magaalada Atlanta ee Georgia waxaa ka mid ah ciyaaryahankii Faarax Oday oo xulka qaranka ee Soomaaliya ee kubadda kolayga una ciyaari jiray naadigii LLBB oo ka yimi magaalada Toronto ee dalka Canada maantay waxaan joognaa guriga walaalkeen Axmed Cabaas Busuri legend one of the best soccer back home in Somalia ayaan soo booqannay maantay halkaan aan ku qadeynay ugu horeyntii waxaan rabaa inaan ka faa'iideysanayo fursaddan marka hore in aan u mahadceliyo martida nooga kala timid meelo kala duwan oo North America oo uu casuumay walaalkeen Aadam Ugaas Jaybulu iyagoo ku yimid martiqaadkaas iyaga ah haddana aan uga sii faa'iideysanayno in aan soo booqannay walaalkeen Axmed Cabaas Busuri waxaan maanta aad iyo aad u faraxsanahay in aan joogo gurigii walaalkay ama ciyaartooyga weynaay Axmed Cabaas Busuri aan ku soo booqday gurigiisii anoo ka yimid magaalada Toronto markaas ku sheegana Mukhtaar Maxamed Axmed ku magac dheer Mukhtaar Cuti oo u dheelay kooxdii Batroolka iyo xulka qaranka Soomaaliya runtii martiqaadkan maanta aan u imid guriga Axmed Cabaas waa aad aan u faraxsanahay an Axmed waxa waa nin walaalkay nin isla soo ciyaarna waaye oo aad iyo aad tarantiisa iyo ciyaartooygiisa u fiicnaay runtiina waxa waaye nin aadaab lahaay runtiina wixii Ilaahay qadaray ma la awoodo walaalkeen Axmed Cabaas runtii inta taqaana way taqaan laakiin taariikhiyan runtii mukhtaarka aad arkaysaan iyo aniga ma xisaabsanin haddaad aragto Axmed Cabaas oo garoon ku jira Bruni meeshuu ka gaarsiisan yahay wuxuuna ka mid yahay runtii dhalinyaradii aniga tifoosaha aan u ahaa markuu garoonka ku jiro Axmed Cabaas maantana walaalkeen waxa waaye Ilaahay dhibka saaran Ilaahay ha ka qaado Axmed Cabaas Ilaahay caafimaad ha siiyo horta faataxadana u marno anigu markaan Canada ka soo baxay Toronto shiiqan soo waxaan iri Axmed Cabaas inaan arko waay muddo ay ugu dambeysay inaan gurigiisa aan tago wuxuu yiri xad kasta aan u tagnaa waa ka warqamaajaa information ka waa haystay waxa Ilaahay caafimaad ha siiyo walaalkeena annaka hadda nin walba hadduu is leeyahay caafimaadaad qabta caafimaadkii ku sirin ama Cabaas shalay waa naga orod badnaay maantana inaan ku cimri qaadano Ilaahay annagana nama fitneeyo bacdigiisa dhammaan dhalinyarada ciyaartooydii hore iyo koojajka meeshaan yimid aad u mahadsantihiin waxaan ku faraxsanahay walaalkay Axmed Cabaas inaan maanta u imaado oo mataqaana u duceyno Ilaahayna caafimaad siiyo marka waxoogaa yar soo dahay raalli ahaada saakadu waxaan mahadcelinayaa xaaskayga deeqaha rasamatan waxaan kaga mahadcelinayaa caruurtayda waxaan mahadcelinayaa walaalahey maxamed waxaan mahadcelinayaa dhammaan isboortiga iyo intii aan ii qadarisay sidaad ii qadariseen Allah idin qadariyo Allah idin qadariyo Allah idin barakeeyo Ilaahay idin siibaade ayay jeclaan kulligiin waxaan mukhtaar Khalif Riiki لاعب مش مختار عليه أمانة لكن عليه أمانة Axmed Cabaas wuxuu ka mid ahaa ciyaartooydii farakutiriska ee ka tirsanaa xulka qaranka ee Soomaaliya halka ayaa waxa ka sheekeeyay ciyaartooydii hore ee xulkeena qaranka Soomaaliya
ayaa waxay ka sheekeeyeen taariikhdu ku lahaa cayaarta kubadda cagta Khalif Rico ayaa waxa uu sheegay inuu aad u jeclaa in uu daawado in marka uu Axmed Cabaas uu cayaarayo Mukhtaar Cuti waad wada garanaysaan xulkii qaranka lambarka 10 waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay maanta inuu halka u yimaado Aweys Fuundi oo taqaanaan ahaana adiga horseed waxa uu yiri aad baan ugu faraxsanahay ahaana xulkii qaranka ee Soomaaliya inaan ka qayb qaato imaashada haddaanba imo gobolka Minnesota inaan u tago Axmed Cabaas wuxuu ahaa ciyaaryahan si aad loogu jecel yahay dalkeena hooyo Axmed Cabaas waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad siiyo waa anigoo ah Zakariya Aadan RTN TV Minnesota